gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Baydhabo waxa uu ku qaabilay guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka kuwaas oo maanta booqasho ku soo gaaray xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed ee Baydhabo. guddiga kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka oo xubnahoodii soo gaaray Baydhabo waxaa hogaaminayay gudoomiyaha guddiga. kulan ay wada yeesheen kadib waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekuna isagoona sheegay in guddigan maalmaha Baydhabo ay joogaan bulshada la wadaagi doonaan arrimaha sharciga doorashooyinka qaranka. runtii waa idin sugeynay ka koonfur galbeed ahaan anaga kulay waxaan u maleynaa mudnaan iyo sharaf ay noo tahay inaan noqono meeshii ugu horeysay oo guddigu imaado. marka waxaan rajeynayaa marka maalmaha aan nala joogtana marka xog badan wax annagana anfacayo naga maqan iyo wax idinka maqano insha Allah oo tala aad ku darsan doonto inaan kala qaadano. marka soo dhawaada. gudoomiyaha kumeel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa dhankiisa sheegay in sababta koonfur galbeed u soo gaareen ay tahay sidii wada tashi ula sameyn lahaayeen bulshada koonfur galbeed. koonfur galbeed sababta ugu soo horumarinay in aan wanaag kala kulmayno si ay ugu daydaan maamul goboleedyada kalena sida halkan lagu soo dhaweeyay iyo kulay barnaamijyada dhici doona maalmaha soo socda oo rajeynayna in si fiican loo abaabuli doono inay ku daydaan oo ayagana ay wadadaas oo kala maraan ayaan ugu soo horumarnay madaxweynahooda iyo golada wasiirada iyo dadkooda oo dhan waa shacabkooda waa u mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo shalay ilaa maanta sidii naloo sugayay. kulli annaga waxaan nahay guddi kumeel gaar ah oo ka shaqeynaya sharciga doorashooyinka. sharcigaas oo aan rabno oo guddiga uu geyn doono baarlamaanka kadibna aqalka sare loo gudbin doono. marka waxaan ku qasbanaanay markiina la magacaabay inaan dadka sharciga uu quseeyo Soomaalidu inuu quseeyaa ay ka mid yihiin maamul goboleedyada inaan dhageysano ra'yigooda waxay ku darsadaan siday wax u rabaan oo aan la dhihin annaga keligeen intaan qol galnay wax qorqorno oo meelgeyna inaysan noqonin oo madaxda ugu sarreysa madaxweynaha wasiiradiisa baarlamaanka gudoomiyahooda civil society-ga waxaasoo dhan inaan sharcigaan u bandhigno qaabkay u fikirayaan doorashada inay noqoto inaan warsanno oo kadib aan xogtaas aruurinaan Baydhabo u nimid maantii berri dambana kulley waan noqon doonaa. jadwalka aad u tayd u yahay uu cariir u yahay annaga waqtigeena la siiyaa keenayo oo aad u yar raggaana arkaysaan xildhibaanada waa labadii bilowda fasaxa laga qaaday si nafurnimo ah inay ku shaqeeyaan labadan bil maadaama sharcigan uu yahay sharci doorashada wadanka dhici doonta 2021 guddigan ayaa dhawaan magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waana markii ugu horeysay oo ay soo gaaraan gudaha magaalada Baydhabo tan iyo markii uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka. Shukri Ismaaciil Axmed RTN Baydhabo.